cabdikayse farxan waxaan ahay maamulaha ku-xigeenka qaybta iibka ee guud ahaan shirkadda Sagal Jad shirkaddii ugu horeysay daawacadeeda dalka Soomaaliland laga sameeyo waxay shirkadda Sagal Jad sanaddu waxay sanadii 2007 si guud caqabadaha ganacsigu marka ganacsi la bilaabayo runtii aad u badan yihiin gaar ahaan shirkadda Sagal Jad waxyaabihii ugu waaweynaa markii la bilaabay soo wajahay waxa kamid ah bariga hore markaan u baahanay in tusaalahaanaynu board sameeyno ama wax daawacad ku saabsan la sameeyo awalkood waxay dad wal xiriir jireen qoloyinka artislayaasha ama dadka gacanta ku sawira dadka 2007 markii shirkadda Hargeysa laga hirgeliyay laga aasaasay dadka waxa ku adkaatay ama shirkadda waxa ku adkaatay in la fahansiyo horta in dadka la baro inuu yimid hab casri ah oo wax loo daawacan karayo oo teknoolajiyada la xiriira caqabadaha aan xisi karno kaas waa kamid caqabadaha labaad waxay haayeen in la helo dad bal ku shaqeyn karaya xirfadda la rabo digitalka in la helo iyaduna caqabad kale runtii ahayd marka labadaas ka xusi karaya caqabadihii ugu horeeyay ee shirkadda soo wajahday dabcan oo haddii aanay shirkaddu ku shaqeynaynin teknoolajiyada casriga ee hadda dunida ka hirgashay runtii shaqadeedu may suurto gashay laba arrimood oo may suurto gashay barnaamijyada shirkaddu ay ku shaqeynayso fududeynaya in naqshada lagu diyaariyo iyo sidoo kale mashiinada shirkaddu ay isticmaalayso labaduba waxay la shaqeynayaan teknoolajiyada casriga ee hadda marka haddii aanay teknoolajiyadaasi aanay shirkaddu saa ula shaqeynayn runtii horukac iyo horumar may samaysay marka runtii qayb weyn bay ka tahay teknoolajiyadu shaqada iyo horumarka shirkadda iminka muddo ku sugan 14 sano ayay shirkaddu shaqeynaysaa markaad eegto muddada intaa la eg waxyaabaha la xusi karay waxaa kamid ah bilowgii saan marka horeba sheegay way adkeed in xataa dadka la fahansiiyo ama in la helaba dad teknoolajiyada ku shaqeeya markii intaas la helay sisteemadii ama barnaamijyada ku shaqeynaysa shirkaddu teknoolajiga la xiriiray la keenay ijinadiina la keenay waxa fududaatay in macmiilkiina hore loogu shaqeeyo in isagoo goobtiisa iska joogo dhinaca doonada jooga dalka ee gobolka doon jooga la gaarsiiyo adeegiisa marka teknoolajiyadu anaga wax naga caawiso inuu qofkii si fudud macaamiishii ay shirkaddu adeegeeda ku gaarsiiso waxaba imka hadda suurtagal qofka soo gurigiisa ama xafiiskiisa ama goobta uu isagu leeyahay jooga in adeegiisa loo qaban karo marka teknoolajiyada la eego runtii waxa la odhan karaa waxay u rogtay macnaheedu 100% way bedeshay oo teknoolajiyada marka la eego awalka hore lama heli jirin qaabka fudud qofka wax loo gaarsiin karo hadday tahay in fariintiisa la gaarsiiyo hadday tahay in delivery la gaarsiiyo marka teknoolajiyadu waxay bedeshay guud ahaan qaabka uu shaqeyn jiray awalka hore ganacsi oo waxay ka dhigtay qaab 100% qaabkii ka duwan marka la eego sida qofka macmiilka iyo shirkaddu ay isu gaari karayaan marka teknoolajiyadu waxay fududeysay xawaarihii wax lagu helayay adeegga lagu dalbanayay communicationkii qaabka macmiilka iyo dadka iibiyay ay wada xiriireen marka teknoolajiyadu 100% ku celinayay way bedeshay qaabka ganacsiga qorshaha markii hore visionku wuxuu ahaa in geeska Afrika laga hirgeliyo shirkad bixisa adeegga casriga ah ee daawacada alxamdulillah shirkaddu waxay ku guuleysatay in Soomaaliland guud ahaan ay wada gaarsiiso adeegeeda waxa kale oo ay ku guuleysatay in gaarsiiso dalalka jaarka sida Djibouti haddana waxa qorshayaashu socdaan in Ethiopia Nairobi Ethiopia Kenya la gaarsiiyo marka visionkii shirkaddu in East Africa oo dhan u adeegto runtii hadda waa lagu dhow yahay intaasina way ka hirgashay